haddii lagu yiraahdo Ramadaanka soo socda qofkii uu khayr badan faafiya 30 maalmood wuxuu qaadanayaa 20,000 oo doolarka Mareykanka ah ma khayr ba ma ganacsi ba mise waa imtixaan qarsoon maanta waxaan ka hadlaynaa tartanka daaci 2026 dhinacaan la arkin bisha Ramadaan waa bil cibaado toobad iyo khayr laakiin hadda waxaa soo baxay tartan lagu magacaabay daaci 30 maalmood oo khayr la faafiya qofka badiyana 20,000 laakiin su'aashu waa maxaa ka muhiimsan khayr la faafinayo mise lacag la qaadanayo laakiin ka hor inta aan sii soconin aan fahanno ereyga daaci ma ahan qof live gala oo hadla oo kaliya daaci ma ahan qof kaamira hor istaaga oo muxaadaro jeediyo daaci waa qof dadka ugu yeera jidka Ilaahay qof noloshiisa iyo hadalkiisa iswaafaqaan qof akhlaaqdiisu ka horeysa ereyadiisa qof marka la arko la xasuusto Ilaahay daacinimadu waa mas'uuliyad waa cilmiga saxda ah ee lagu daray daacadnimo waa joogteen xitaa markii aan la arkin haddaba marka ereyga daaci lagu lifaaqo tartan su'aashu way sii cuslaataa marka hore aan cadayno khayr la faafiyo weligiis ma xuma dad loo wacdiyo dad la xusuusiyo quraan la akhriyo sadaqo la dhiirigeliyo waa wax wanaagsan rasuulka naxariis nabadgeliyo korkiisa aatee wuxuu yiri qofkii ku tilmaama khayr wuxuu leeyahay ajar la mid ah kii sameeya haddaba haddii tartanku dadku ku dhiirigelinayo khayr taasi waa wax fiican laakiin arrintu halkaasi kuma eka diinteena suuban waxayna leedahay camalku wuxuu ku xiran yahay niyadda haddii qofku u hadlo si uu lacag u helo uu u hadlo si uu u helo followers ama uu u hadlo si loo yiraahdo waa daaci markaasi halis ayaa jirta su'aal ayaa ku weydiinayaa haddii 20,000 la waayo ma sii wadi lahaa khayrka haddii jawaabtu tahay maya dhib ayaa jira markaasi daacinimadu ma ahan 30 maalmood waa nolol dhan qof aan horay lagu aqoonin akhlaaqda cilmiga saxda ah iyo joogteynta cilmiga oo sikadiisa 30 maalmood u noqda daaci kadib Ramadaan uu baabaa taasi waa wax laga baqayo diintana looma isticmaalo ololo xilliyeed hadda su'aasha ugu weyn ma banaan tahay in lacag lagu bixiyo tartan diini ah culimadu waxay qabaan haddii ujeedadu tahay dhiirigelin hadduu cilmigu sax yahay haddii niyadu daacad tahay waa wax banaan laakiin haddii lagu ganacsado wacdi lagu dhiso show iyo muuqaal dad aan aqoon lahayn la hormariyo markaasi diinta ayaa loo adeegsanayaa dana adduun daacigu waa inuu leeyahay cilmi saxan akhlaaq muuqata joogteynta cilmiga iyo niyad Ilaahay dartii ah haddii uu tartanku keeno dad daacad ah waa khayr haddii uu keeno riyo iyo show waa khatar marka tartanka daaci 2026 ma oran karno si toos ah waa qalad laakiin ma oran karno si indha la'aan ah waa sax wax walba waxay ku xiran yihiin niyad daacadnimo iyo wax dhaca Ramadaan kadib adigu maxaad u aragtaa haddii la waayo lacagta ma sii wadi lahayd khayrka ku soo qor aragtidaada qaybta hoose ee commentiga mahadsanid